بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت دي لايك قدرين إن شاء الله واحد بلعبنا كورس كيني أكاديميك رايتنج كواحد يبغى يقول مهم سنة الدنيا إن كان الله حكم ذا كو وحين كبلعبنا what is academic writing هل كاسين كبلعبنا وحين كبلعبنا what is academic writing ayaynu marka u horeysa ka bilaabayna su'aasha markii ka jawaabno waxaan ku xigsiin doonaa maxaa loo isticmaalaa academic writing ayaynu talabaad ka dhigaynaa tastaxaadna waxaan ka dhigaynaa qofku marka uu doonayo inuu qoraal cilmi ku dhisan qoro talaabooyinkee muhiim ah inuu qaado inahaas baynu bal isla eegi doonaa marka su'aasha koowaad jawaabteeda haddii aan bilowno academic writing waxaan ku qeexaynaa waa formal style of writing waa qaab nidaamsan oo wax loo qoro dhan by the researchers or scholars oo ay aqoonyahanadu u qoraan isla markaana ciday u qorayaan ay yihiin dadka wax baranaya ee aqoonyahanada ujeedaduna waxa weeyaan in la buuxiyo requirements of higher education waxyaabihii looga baahnaa tacliinta sare ayaabaa loo qoraa waxaan ka bilaabaynaa marka u horeysa what is academic writing waxaan kaga jawaabaynaa academic writing is a formal style of writing is a formal style is a formal style of writing is a formal style of writing waa qaab nidaamsan oo wax loo qoro waliba yaa u qora done by the scholars waxa wax u qora aqoonyahanada ciday ugu qorayaana waa for the scholars isla aqoonyahanada ayuu bay u qorayaan sababtuna wax kala maayo waxa weeyaan to fulfill si loo buuxiyo requirements of higher education si loo buuxiyo shuruudihii looga baahnaa tacliinta sare ayaa loo qoraa haddaba academic writing maxaa loo isticmaalaa waa su-aasheen doonaya inaan ka jawaabno imika waxaan oranaynaa markaa academic writing is used for academic writing is used for waxaa loo isticmaalaa oo lagu qoraa kow waxyaabaha ugu caansan ee lagu qoraa academic writing waxaa ka mid ah textbooks waa buugaagta textbooks sidoo kale waxaa ka mid ah publications ku dar oo publicationska markaa la qorayo waxaa loo isticmaalaa qoraal cilmi ku dhisan waxaa ka mid ah thesis or dissertation buugaagta ardaydu ay qorto marka ay qalin jabinayso ama ay dhammaynayso jaamacadaha sidoo kale waxaa loo isticmaalaa reports warbixinaha sidoo kale waxaa loo isticmaalaa present fact and data marka qofku uu doonayo inuu soo bandhigo xaqiiqooyin iyo xogo wuxuu isticmaalayaa academic writing waayahay waxaynu haddaba imika u gelaynaa steps ama tallaabooyinka la qaado marka la doonayo in qoraal la sameeyo steps in the writing process waxaan ka bilaabaynaa steps in the writing process waxaan ka bilaabaynaa waa maxay steps in the writing process the steps taken by the writer to finish a piece of writing tallaabooyinka uu qaadayo qoraagu si uu u dhammeeyo qoraalkiisa hadduu yahay essay hadduu yahay article hadduu yahay assignment hadduu yahay book uu qorayo thesis ayaa loo yaqaanaa steps in the writing process marka waxaan oranaynaa tallaabooyinka nidaamka qoraalka qof kasta oo doonaya inuu qoro a piece of writing
isla markaana uu dhammaystiro tallaabooyinka uu qaadayo ayaa loo yaqaanaa steps in the writing process tallaabooyinka nidaamka qoraalka haddaba imse step ayaa la doonayaa qofku inuu qaado si uu dhammaystiro qoraal uu doonayo inuu qoro 4 tallaabo ayaa la rabaa inuu qaado 4 tallaabo tallaabada koobaad waxaa la yiraahdaa pre-writing waa tallaabada koobaad ee qofka doonaya inuu wax qoro uu qaadayo tallaabada labaad waxaa la yiraahdaa draft oo waa inuu qoraagu qoro qoraal draftina tallaabada saddexaadna waxaa la yiraahdaa editing tallaabada afraadna waxaa la yiraahdaa publishing waxaa la yiraahdaa publishing oo kuwa haddaba waxaan ka bilaabaynaa waa maxay pre-writing pre-writing markaan qeexayna waxaan ku qeexaynaa waa time to think waa la time to think waa waqtiga qofku uu ka fikirayo wixii uu qori lahaa ayaa loo yaqaanaa pre-writing drafting kana waxa la yiraahdaa waa time to write it down time to write waa time to write it down waa waqtiga qofku uu qoraal u bedelayo wixii uu ka fikirayay editing kuna waa maxay isna waxa lagu qeexaa time to correct waa waqtiga uu sixitaan ku sameeyo qoraagu wixii uu qoray publishing kana waxa la yiraahdaa waa time to copy waa waqtiga qofku uu daabacayo ama uu print karaynayo wixii uu qoray ayaa loo yaqaanaa publishing inaan isla fahnay baan rajaynaya waayahay imika waxaan isla garanay there are 4 steps taken by the writer in order to finish a piece of writing and they are pre-writing drafting editing publishing okay mir baynu soo qaadanaynaa waxaan kor bilaabaynaa pre-writing haddii aynu pre-writing soo qaadano marka u horeysa waxaan ka jawaabaynaa waxa la before you sit down to write something koor intaanad u fariisan inaad intaad wax qorto you need to plan and think about what you want to write waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto isla markaana qorshayso wixii aad qori lahayd haddaba waqtigani waa waqtiga qofku inta aanu qoraalka bilaabin isla markaana aanu u fariisan inuu wax qoro uu qorshaynayo kana fikirayo wixii uu qori lahaa ayaa loo yaqaanaa pre-writing ereyga pre macnihiisu waa before literally means before writing waxaynu ku macnaynaynaa markaan turjumayno before writing oo ereyga pre ayaa macnihiisu yahay before markaan turjumayno waxaan odhanaynaa before writing in isla fahnay baan rajaynaya haddaba inta aanad bilaabin qoraalkaaga ee aanad u fadhiisanin maxaa kula gudboon 3 tallaabo ayaa kula gudboon ee 3 tallaabo samee kow tallaabada koobaad ee aynu ku bilaabaynaa waxay noqonaysaa come up with the topic come up with the topic tallaabada labaadna waxaa la yiraahdaa list idea xoreyna list idea tallaabada saddexaadna waxaan odhanaynaa organize your idea organize idea waa intaa haddaba ta koowaad aynu soo qaadan waxaan soo qaadanaynaa come up with the topic macnaheedu muxuu noqonayaa come up with the topic macnaheedu waxa weeyaan marka hore mawduuca dooro waxaan ka bilaabaynaa select the topic bilowga ugu horeysa waa inaad mawduuca doorto in this step
you can choose the topic waxa ku dooranaysaa mawduuca waa intaanad qoraalka bilaabin haddaba ka warrama if you don't have much information about the topic haddii aanad mawduuca xog ka haynin ka warrama okay marka waxa weeyaan tallaabada koowaad in qaadayna waxa la yiraahdaa writing waana before writing waa ka hor intaanad qoraalka bilaabin waa inaad qorshaysaa isla markaana ka fikirtaa mawduuca aad qori lahayd markaad mawduuca hesho waxaad ku xigsiinaysaa list idea oo waxa la yiraahdaa generate idea waxaan oranaynaa generate idea fikradihii ayaynu abuuraynaa ayaynu samaynaynaa ugu dambeyn waxaan samaynaynaa organize your idea fikradahaaga waa inaad isku habayso haddaba waxaa aad muhiim u ah ka waran if you don't have much information about the topic haddii aanad mawduuca aad doonaysa inaad qorto xog ama warbixin badan ka haynin qaab loo soo ururiyo ayaa jirta warbixinta ways to collect waa qaabka loo soo ururiyo information about the topic information about the topic waxaa jira qaab loo soo ururiyo warbixinta iyo xogta qofka hadduu doonayo inuu wax qoro dee waa in wax badan akhriyo waa meelaha ugu muhiimsan ee qofku markuu doonayo inuu wax qoro uu qoraalkiisa macno uga samayn karo sidoo kale waxaa ku xigta read books waxaad samaynaysaa iyo kale search online ahaan ayaad ku baari kartaa waxa aad doonaysaa inaad qorto ama waxaad samayn kartaaba watch videos about it waxaad daawan kartaa fiidiyoyo mawduuca aad doonaysa inaad qorto ka hadlaya ama ask the people waxaad weydiin kartaa dadka haddii aad intan samayso oo aad buug akhrido online ahaan ku baadho video daawato dadka weydiiso waxaa hubaale waxaad helaysaa detail information waxaad helaysaa detail information xog faahfaahsan baad helaysaa about oo ku saabsan the topic mawduuca aad dooratay ayaabaad xog faahfaahsan u helaysaa okay list idea waxaan jeednaa waxaad samaynaysaa marka aad idea generate garaynayso waxaa la doonayaa inaad taxdo dhammaanba fikradaha xidhiidhka la mawduucaaga marka aad doonayso idea inaad abuurto waa inaad samaysaa list tax all the main ideas dhammaan fikradaha ugu waaweyn ayaad taxaysaa that you have related to the topic ee aad mawduucaaga la xidhiidhinayso that you have related to the topic waa inaad fikradaha xidhiidhka la mawduucaaga oo dhan tahay midna xasuusnaada waxaa la dhahaa brainstorm and outline many points as it is possible waxaa lagaa rabaa inaad maskaxdaada tuujiso ayaa la doonaya waxaa la doonaya inaad samayso brainstorming maskax tuujin markaad maskaxda tuujisona waxaa lagaa rabaa an outline many points as possible qodobada muhiimka ee dhan ee aad isleedahay mawduucaagan way anfacayaan ayaa lagaa rabaa inaad taxdo ama aad qorto haddaba sideed u organize garaynaysaa fikradaada markaynu leenahay organize your idea waxaa lagaaga fadhiyaa ama lagaa doonayaaba ideyadii aad haysatay waa inaad samaysaa listed look at the ideas you have listed dib u eeg waxaad samaysaa look at the ideas you have listed
fikradii maskaxdaada aad ka soo saartay aad tuujisay ayaaba dib u eegaysaa markaad dib u eegto waxaa lagaa rabaa rearrange the idea waa inaad dib u habaysaa fikradihii rearrange dib u habee rearrange the ideas fikradihii aad haysatay baad dib u habaynaysaa weliba in the order that you think qaabka ay u habaysmayaan ay isku raacayaan ayaad u habaynaysaa midna xasuusnaada weliba make a rough map make a rough map waa inaad rough map ama outline ama diagram mid un isticmaal kuwa aad isticmaalayso waxaad samaynaysaa raf ahaan baad marka hore u diyaarinaysaa